yaanjus ku xig wuxuu tilmaamayaa maadooyinka imtixaanka markii maadooyinka ardayda dhamarka la isku geeyay waxaa la soo saaray grade ku saabsan maxaa la hayaa ardaydaas boqolkiiba maadada meeqay ka haysan waxaa laga fahmaa maado kasta ardayda meesha ay ka taagan tahay dhammaan 4,297 arday graded ay ka joogaan maadada tarbiyada celcelis marka la isku geeyay waa 73.99 boqolkiiba ay ardayda maadadaas heerkaas ay ka taagan yihiin maadada carabiga 8.84 ardayda guudan ka hadlayna oo imtixaanka wada gashay dhan waayo af Soomaali 81.3 eber 3 maadada xisaabta 73.88 maadada cilmiga bulshada 82.2 maadada sayniska 86.39 maadada ingiriiska 83.4 maadada teknolojiyada ugu dambeysana 74.47 marka halka waxa garanaysaa maadada ardayda ugu sareeyaan natiijo ahaan waa maadada sayniska oo 86.39 ay keeneen kaalinta koowaad qaalid Abuukar Axmed Muuse Imaam Nawawi Balcad 94.86 kaalinta labaad Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf Abuukar Sheekh Xanafi degmada Jowhar 94.71 kaalinta saddexaad Fardowsa Yuusuf Cali Axmed Sheekh Xasan Barsane Jowhar 93.86 wasaaradda waxbarashada dowladda Hirshabelle ayaa maanta magaalada Jowhar ku qabatay xaflad kooban oo markaasi lagu shaacinayay imtixaanka shaadiga fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe deegaanada dowladda Hirshabelle munaasabadan oo ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa bahda waxbarashada degmada Jowhar macallimiin waalidiin odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay marxaladii soo maray imtixaanka gudoomiyaha waxbarashada degmada Jowhar Liibaan Bashiir Cumar iyo Cabdullaahi Saalax Muddo oo kamid ah mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Hirshabelle ugu horeyn salaamaha tiimka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabelle waalidiinta maamulayaasha macallimiinta dhamaan bahda saxaafadda waxay idinku salaamta salaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ما أنت ومالين وين وحاسكوه إيماني ومالين فرحات ومالين كقيمة له أرضي الصومالية أرضي دولة قبلات كهير شبالة وعن ما أنت هل كان اسكوه إيماني إنا شاعينه حلفت امتحانك شهادة فصل كسديدات سنة دوكسيات كلاو كن لاتني لو كن اللي تسدح إنا ما أنت هل كان كشاعينه soo dhawaada aniga hadal badan ma lihi inaan maamulayaasha macallimiinta iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha xalfadan qiimaha badan inaan ku soo dhaweeyo oo maadaama saacadahan hadda halkan wada joogno wada qaadan doono insha Allah dhammaan ardayda Soomaaliyeed ardayda dowlad goboleedka Hirshabelle waxa uu rajeynaa guul iyo sanado badan dadaal badan yaantuskan hadda ku xig waxa waaye natiijada maanta aan rabno inaan shaacino ayuu soo kaba oo agaasimaha imtixaanaadka ugu dhawaaqi doono si halka idinka muuqdo 101 arday ayaa waxay keentay grade A imtixaanka maanta aan saxayno oo 4297 arday ah 101 arday kamid ah waxay keeneen darajada A ay keeneen 2998 arday kamid ah darajada waxay keeneen A- ay keeneen darajada B waxaa keentay 248 arday darajada B- waxaa keentay 75 arday darajada B+ waxaa keentay 294 arday darajada C waxaa keentay 5 arday darajada C- waxaa keentay 7 arday darajada C+ waxaa keentay 2 arday D waxaa keenay 1 arday D+ waxaa keenay 4 arday darajada u dambayso E ah na waxay noqotay 32 arday agaasimaha imtixaanaadka ku dhawaaqi doona 32 arday dhacday waa imtixaanka yaanjus ku xig wuxuu tilmaamayaa maadooyinka imtixaanka markii maadooyinka ardayda dhamarka la isku geeyay waxaa la soo saaray grade ku saabsan maxaa la hayaa ardaydaas boqolkiiba maadada meeqay ka haysan waxaa laga fahmaa maado kasta ardayda meesha ay ka taagan tahay dhammaan 4,297 arday graded ay ka joogaan maadada tarbiyada celcelis marka la isku geeyay waa 73.99 boqolkiiba ay ardayda maadadaas heerkaas ay ka taagan yihiin maadada carabiga 8.84 ardayda guudan ka hadlayna oo imtixaanka wada gashay dhan waayo af Soomaali 81.3 eber 3 maadada xisaabta 73.88 maadada cilmiga bulshada 82.2 maadada sayniska 86.39 maadada ingiriiska 83.4 maadada teknolojiyada ugu dambeysana 74.47 marka halka waxa garanaysaa maadada ardayda ugu sareeyaan natiijo ahaan waa maadada sayniska oo 86.39 ay keeneen maadada ugu hooseysana waa maadada teknolojiyada oo ah 74.47 guud ahaan ardayda imtixaanka Hirshabelle gashay halkan waxa ka muuqdo sawirada imtixaanka marka la saxay qaabka sawirada loo saxayo hore u soco waxaana waa sawirada imtixaankii waa kana warqad markaasaan loo soo soco hadda waxay soo celi gadaal soo celi
هذا معلنك امتحان سو صاحي كله انتو صح قال العلي هرسوا صح لكن أرضي امتحان سنة الله صحة كود كادات دي شيء وكان أرضي كسر أرضي هذا مجلس كم لقنا لما يقانو حتى كان معلم مجرته كود كان بيسوله كود كان وحيا قانو تيم امتحان كشغينا dhankooda waxaa munaasabadani ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulaadka macallimiin iyo nabaddoonnadii kasoo qayb galay madashani waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ardayda fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2022 ee maanta natiijadooda halkan laga shaaciraba hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan leeyahay guul ayaan idin wada rajaynayaa shaacintooda inay noqon doonto mid lagu guuleysto ayaan rajaynayaa oo guud ahaan arday walaba oo dugsiyada kamid ah dhigta oo noqdaa mid guuleystay oo noqdaa annagana farxad weyn geliyaa hadal badan aan ma buuxsho balse waxaan idinka filayaa oo aan ka rajaynayaa wasaaradda waxbarashada ayadana aan ka jeclaan lahay haddii suurtagal u tahay in natiijada ay soo saarayaan ay noqotaa dugsi waliba inuu natiijadiisa ardaydiisa si toos u helo hadday suurtagal ay u tahay hadduu ilaahay idmo aad iyo aad ayaad mahadsantiin waan idin mahadcelinaynaa inkaga mahadcelinaynaa dadaalka aad samayseen haddii aad tahdiin bahda waxbarashada ee barbaarinta ee dowlad goboleedka Hirshabeelle wassalaamu calaykum sanadkii afaraad ee imtixaanka Hirshabeelle fasalada 8aad lagu diyaariyo oo si guul leh oo noogu dhamaaday iyo sharaf leh noogu dhamaaday waxaan kaloo rajaynayaa ilaahay idinkiisa mustaqbalka in form 4-adane saas la mid ah dowlad goboleedka Hirshabeelle ay u diyaariso oo asagana si guul ah oo noogu dhamaado oo xafladihiisana sidaan aan mataqaanaa u qabsano waxaan isku wada rajaynaynaa dhammaantiin khayr iyo wanaag iyo ciza iyo sharaf waa maasantiin waxaan baliya maamulka Hirshabeelle guud ahaanba oo suuro geliyay in si amniyo oo wanaag looga shaqeeyo iskoolaadka u shaqeeyaan macallimiintaana iyadoo oo hadda ay maamulada iska liitaan ay soo dadaali jireen hadda state iyo dawladda waxay isku xiran oo imtixaanka shahaadiisa iyo dawladda dhexe ay bixayso ayay heestaan ilaa ugu mahad celihaynaa ardadana waxaan rabnaa kuwa hadda waxbarashada ku jira inay sii labanlaabaan wiilasha iyo gabdhaha hadda ka qalinjibaa dugsiga hoose dhexe dugsiga sare u socdana ayagoo faraxsan oo niyad faya way dugsiga u gudbaan si waxbarashada sii labanlaabaan ay niyad jibin maamulka macallimiinta iskoolaadkana waxaan leenahay boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin ugu dambeyntii waxaa natiijada imtixaanka si rasmi ugu dhawaaqay maxamuud cali axmed oo ah agaasimaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee wasaaradda waxbarashada dowladda Hirshabeelle war-saxaafadeed wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowladda Hirshabeelle ayada oo gudonaysa waajibaadkeeda shaqo ee ku aadan u adeegyada shacabka Hirshabeelle waxaa sharaf iyo farxad weyn inoo ah in maanta oo hadda taariikhdu tahay 27 Agoosto 2023 in aan soo bandhigno natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad sanad dugsiyeedka 22-23 kaas oo wasaaraddu u tahay sanadkii afaraad ee qaadayso imtixaan midaysan waxaa imtixaanka la qaaday 20 May 2023 wuxuuna dhamaaday 23 May 2023 waxaa lagu galay 23 xarumood oo ku kala yaala deegaanada dowladda Hirshabeelle guud ahaan waxaa imtixaanka sanadkan u fadhiisatay 4297 arday faalada guud ee ardayda imtixaanka ka gashay tirada ardayda gudubtay waa 4265 arday tirada hartay waa 32 arday tirada gudubtay waa 2611 boqolay marka aan xisaabna waxay noqotay 61 boqolkiiba dhidig 1654 boqolay waxa waaye 39 boqolkiiba tirada ardayda hartay waa 21 arday waa boqolkiiba 0.50 dhidiga waa 11 arday waa 0.25 boqolkiiba tirada guud ahaan ardayda gashay waa 2632 arday boqolkiiba waa 61.25 dhidig waa 1665 boqolkiiba waa 38.75 wadarta guud ardayda waa 4297 arday sidoo kale waxa ay wadaagaynaa 10 arday ay ugu sareysa guud ahaan imtixaanka magacyadooda kaalinta koowaad Khalid Abuukar Ahmed Muuse Imaam Nawawi Balcad 94.86 kaalinta labaad Abdiraxmaan Maxamed Yuusuf Abuukar Sheikh Xanafi degmada Jowhar 94.71 kaalinta saddexaad Fardowsa Yuusuf Cali Ahmed Sheikh Xasan Barsane Jowhar 93.86 kaalinta afraad Hurriya Cabdullaahi Abuukar Ahmed
sheekh xanafi jawhar kaalinta afaraad nuurta cumar cabdi axmed ifiyo balcad 93.29 kaalinta shanaad xuriye cabdulaahi abuukar sheekh xanafi jawhar 93.14 kaalinta lixaad maxamed xasan iskuulka debley buluburti 93 kaalinta toddobaad waxaa isla galay 3 arday ismaaciil cabdisalaan maxamed maxamuud sheekh xasan barsane jawhar 92 حسني إسماعيل محمد حسن إمام النووي بلعد 92 إسماعيل نور محمد إفتن بلعد 92 كارثة سديدات مصطفى إسماعيل نور نوني إمام شافعي جوهر 92 تضبط كارثة سجالات مسعود عبد القادر محمد إيدو شيخ حنفي جوهر 92 كارثة طبنار سهيب عبد الله الشرع أولاد المأمون مكتبان 92.14 وزارة waxay u hambalyeynaysaa magaalada dareysa dhammaan 10 guuleysatay imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad gaar ahaan 10 arday ee ka galay kaalmaha ugu horeeya sidoo kale wasaaradda waxay u hambalyeynaysaa dhammaan inta qayb qaadatay imtixaankii ugu horeeyay shaqaalaha wasaaradda macallimiinta waalidiinta iyo ciidanka booliska dowladda Hirshabelle iyo dhammaan bahda waxbarashada aad u mahadsantihiin cabdiraxmaan gutaale telefishinka dowladda Hirshabelle magaalada Jowhar